farxad ay ii tahay inaan isla qaadano cashirkeeni uu horiyo ku saabsanahay softwareka QuickBooks. insha Allah maanta cashirkeena waxaan ku qaadan doonaa sida loo abuuro company adigoo isticmaalaysid softwareka loo yaqaano QuickBooks. markii aad company ku dhex abuuraysid softwareka QuickBooks waxaa ugu muhiimsan laba arrin. waa tan koowaad in companygaaga magaciisa iyo weliba adresskiisa aad gelisid. tan labaad ugu muhiimsan waxay tahay companygaaga business typekiisa inaad gelisid. haddii ay ahayd sole proprietorship, partnership, corporation iyo weliba LLC intaba. sole proprietorship waxaa la wadaa ganacsi uu leeyahay hal qof. partnershipna waxaa la wadaa ganacsi uu ka dhexeeya laba qof, saddex qof iyo wix ka badan. halka corporationna lagu wado ganacsi ay kala madax banaan yihiin dadka iskale iyo weliba dadka managerska ama maamulo. balse intaan u gudbin kusoo dhawaada muuqaalkeena. haddeertaan aan isku dayo inaan idin tuso iyadoo practical ah. waxaad igala socon doontaa shaashada computerkayga. markii aad rabto inaad abuurto company waxaa waajib ah marka hore inaad QuickBooks soo furto. QuickBooks markaa soo furno sidaan ayuu soo saari doonaa. haddii uusan hore company uusan kugu kacsaneyn sidaan ayuu soo saari doonaa. laakiin haddii company hore kugu shidnaa uu jiro waxaad dhihi doontaa file kadib waxaad sii dooran doontaa create new company. laakiin haddii uusan company ku shidnaa sida aniga ii muuqato waxaad dhihi doonaa oo kaliya create a new company. create a new company markaa ku dhufano sidaan ayuu soo bixi doonaa. saddex qaab ayaan u samayn karnaa markii aan abuurayno company. kan koowaad waxay tahay express search inaan si fudud oo ku abuurno waxyaabaha loo baahan yahay kaliya aan buuxiyo sida magaca companygeena, lahaanshaha companygeena, cid iskale ama sole proprietorship, partnership ama corporation. su'aalo fudud ku weydiin doonaa oo muhiim ah. sidoo kale waxaa kaloo abuuri kartaa advanced setup. advanced setup waxay tahay waa inaad information badan aad meesha gelisaa. su'aalo wareysi dheer lagu yeelan doonaa. so waxaa la rabaa inaad waxaas dhan aad ka jawaabtaa loo baahan yahay. qaabka saddexaad oo abuuri karto company wuxuu tahay other option waxaa ka muuqato in convert other accounting software data. software kale hore u isticmaal jirto accounting ah waa ka soo guurtay waxa uu soo guurtay QuickBooks. so inaa wax dhan dhib barto ma baahin waxaa dhihi doontaa ii soo rarab dhaatadii xogteeda. anaga maadaama waqtigeena uu yar yahay waxaan taaban doonaa express start. laakiin advanced setup waa dooran kartaa su'aalo dheer lagu yeelan doonaa wareysi dheer. so waa inaad soo buuxisaa meelahaas muhiim ah inaad buuxiso meelaha qaarkood. okay hal mar waxaan dhahaynaa anaga express start markaa ku dhufano sidaan ayaa noo soo bixin doonta. tan ugu horeysa waxay tahay inaan buuxino company namekeena, magaca companygeena. waxaa waajib ay tahay meeshay saaran tahay xidigta gadguudka saaran tahay waa required. laakiin meeshayna saarneen sida tax ID oo kaleetood waa laga boodi karaa. waxaa waajib inaad geliso meesha ay xidigta gadguudka saaran tahay inaad buuxiso. magaca companygeena waxaa leenahay tusaale ahaan maandis oo kaleetood. maandis markaan dhahno industry waxaa loo yaqaanaa qaybta ganacsiga uu ka tirsan yahay. industry waxaa loo yaqaanaa group oo companyyaal ah kuwaasoo hal goob ka shaqeeya. tusaale ahaan groupkan waa groupkii dhismaha ka shaqeeya, kuwan waa kuwa electronic ka shaqeeya, kuwan waa kuwa telecommunication ka shaqeeya. so industry waxaa la lahaa ganacsigan aa ku jirto, daawada maa ku jirtaa, ganacsigaaga daawada maa, ganacsigaaga dharka maa gadaa, ganacsigaaga muxuu yahay. okay so anaga waxaa leenahay tafaariiq leenahay bas waa weeg marin retail shopping aa leenahay. okay dukaan yariisu tafaariiq lagu iibinaa leenahay tusaale ka soo. okay company type companygaaga nuuciisa. okay waxaa partnership ma sole proprietorship ma corporation ma multiple member LLC so ganacsiga inaa haddii ku jirto filliga BA waa fahmi kartaa. sole proprietorship waxaa lagu yaqaanaa ganacsi uu hal qof uu leeyahay. okay hal qof bisa iskale. partnership waxaa lagu yaqaanaa ganacsi uu leeyahay laba qof ama wax ka badan. okay corporation waxaa lagu yaqaanaa ganacsi ay kala madax banaan yihiin dadka iskale iyo weliba dadka maamulaya. waa ganacsi shares soo saaro kadib dadka dividend la siiyo. okay anaga tusaale ahaan waxaa leenahay inaan dhahno sole proprietorship. anaga cashuur ma dhiibno so waa ka boodi karnaa. halkan wuxuu ku weydiinaa do you have employees ma leedahay uu ku leeyahay wax shaqaale ah. halkan furaysa haddii aad leedahay yes, haddii aadan lahayn maya. haddii aad leedahay laakiin aad rabto inaad mustaqbalka dhow wax shaqaaleysiiso waxaa leedahay no but I made in the future. waxaa laga yaabaa inaad mustaqbalka yar aan shaqaaleysiiyo. so anaga waxaa leenahay waa leenahay shaqaale ku tusaale. adiga waxaa rabtaa dhigi kartaa companygaaga hadduu shaqaale leeyahay waa leeyahay, hadduusan shaqaale leeyahay malaha. okay waxaa leenahay continue markaa dhahdo waxaa kaloo loo baahan yahay meesha oo xidigta saaranta. halkan waxaa laga baahan yahay numberka ganacsigaaga iyo waxaa loo baahan yahay zipka. adresskana haddii aad rabto waa geli kartaa, haddii aadan rabinne
واسكراف كرتا اوكي ما دام Soomaali aanay oo aan lahayn wax address ah waa iskaraafina okay halka qoranta city waxa gelinayna magaalada ganacsiga uu ka shaqeeyo tusaalaha anaga waxa iska leenahay Mogadishu halkan state ay qoran tahay hadii aan furno waxa kaaga soo bixi doona xarafada suuqa gaabi waaw gobolada wadanka Mareykanka ayaa halkan ka buuxo maadaama software-kan laga leeyahay wadanka Mareykanka halka ay qoran tahay country ay furayna anaga soo dooranayna wadankeena so anaga waxa leenahay maadaama wadankeena aysan halkan uusan ku jirin wadamada kooban inta la keenay oo Australia, Brazil, Canada, China, Japan, Malaysia, Mexico, other Singapore, South Korea, Taiwan, USA, UK. So anaga maadaama wadankeena Soomaaliya uusan ku jirin waxa leenahay other marka ilaano zibkan waxa gelinaa su'aalaan 252 oo kale okay waxa kale oo muhiim ah phone number okay waxa leenahay numberkeena inuu yahay 6 okay intaas marka ilaano numberkaaga gelinaysaa kadib waxa leenahay create company file waa ujeedaa inuu abuurayo company-geena percentage uu marayo waa 10% waqti yar u baahan tahay inaad sugno 50% sidii muuqato hadeertaan company-geeni waa noo abuurmay wuu noo soo kacay sidaas daraadeed information kaleetood aduu wuxuu ku leeyahay waxaa gelisaa dadka businesska la leedahay bangi akoonadaada geli laakiin hadeertaan muu baahan inaan gelino ujeedka aanteen cashirkeena wuxuu ahay inaan abuuri karno company anagoo isticmaalna software-ka QuickBooks waxaa leenahay marka start working aan leenahay si uu shaqada u bilaabo maadaama ganacsigan uu yahay ganacsi hadeertaan aan sameynay ama business aan sameynay wax xog aanan gelin hadeertaan haddii aan booqano financial statement-kiisa tusaalahaan balance sheet-kiisa iyo income statement-kiisa oo kale haddii aan booqano every noqon doonaa waxaa leenahay halka qoran tahay reports kadib waxaan sii dooran doonaa company and financial kadib waxaan sii dooran doonaa balance sheet standard balance sheet ayaa ujeedaa inuu wax dhan asset-keena uu every liability plus equity waxa uu ever yahay maadaama company-ga hadeertaan aan abuurnay income statement-kiisana soo fiir reports aleena company and financial kadib waxaa dhihi doonaa profit and loss standard ujeedaa net income-keena inuu zero yahay okay halkani waxaan ku eg cashirkeena waxaan rajeynayaa in cashirkani aad ka muhiimsanaa aad ka bogatay isla markaas inaad isku dayi doonto inaad sameyso company adigoo isticmaalaya software-kaaga QuickBooks-ka haddii aad kamid tahay ardaydii hore u qaadatay software-ka Bigtree oo aad doonayso inaad hesho shahaado waxaad nagala soo xiriiri kartaa numberka ku qoran qaybta description-ka adigoo u geli doona imtixaan qaab online ah isla markaasina jawaabta aad ku bixin doonto qaab online ah ardayga qaata koorskan ayaa wuxuu heli doonaa shahaado annaga ugu soo diri doono qaab online ah haddaba waxaan rajeynayaa inaad fursadaas qaaliga ah aad ka faa'iidaysan doontaan waxaad baas xasan nur oo idin leh adoo dhaxal reebi karo hana ku dhinta aan la tabin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh